نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأها مدينة رسولك إلهي انتو صادري مدينة حكم كيسي عدالة بدنا كبلاوي يعني يهودي هو رعاياكيسي يددكي ومسؤولك كاها كاميدا نين كاميدا كو ددك أجعلا أو حديث أقوبادا كوريو اللورنجري جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنساري وأها من بني سلمة وأها نين فاضله النبي جعل يهي أيا وحلة الماما إني قصة نورد مرتي قصة وحا يهي نين يهودية أيا جابر وحكلا دين سنجرين يهودي جيبا جابر وحو كويا شي دينتي أيو جابر وحو بلميي حلقا بيرتا لقوستو تمرتو حلقا يسوقودو إيمو حلقا أيو يمد جابرنا وحو ننكي أوايي وحو كوان ببحيو دينتي سي أغاديغو سببتو حلقا وحا جيري أو جابر سوفوت ساري إنو أهانين فقيرة وان ميلكلا وحكيهلي كارين تمرتينا أي أبحي ويدي يهودي وحو كيري مركلا وحيقا سوق يهودي وحو كيري مركله وحيقا سوق dabeedna yahuudigii waxa uu ku yiri waa yahay mar hadduu ka noqday sanadkii labaad buu ku soo noqdayo waxa uu yiri had misana waxiga sug hadana dabeedna yahuudigii waa ku adkaadayo waa uu diiday inuu waxba ka sugo markuu yahuudigii diiday inuu waxba ka sugo ayaa wuxuu yiri waxba doorkan ka sugi mahay jaabir wuxuu qeyshaday saxaabadii rasuulku saxaabadii ayuu soo kiciyay dabeedna waxa loogu yimid jaabir beertiisii dhexdeeda yahuudigiina daris buu la ahaayo waa loo tagay nabigu wuxuu kala hadlay inuu jaabir deynta uu ku leeyahay doorkan intuu ka sugo dib ugu dhigo dabeedna yahuudigii waa uu diiday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu wax la'aan intuu ka soo noqday hal amar buu siin karayo magaalada haddaad rabtay inaad sii joogto amarka yagii weeye annaga rasuulka ilaahay ee sidaa yeel laakiin maanay ahayn talada nebi maxamed caynka calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku sameeyey jaabir inuu ku yidhaahdo ninka ii tilmaanu ninkii u tilmaamuu haddana u tago oo uu ku yidhaahdo jaabir ka sug deynta aad ku leedahay sanadka dambe iska bixiye mumaadalana ma ahayn dabeedna jaabir waa uu diiday yahuudigii inuu ka sugo jaabir waa uu diiday markuu laba jeer nabigu ku noqday ayuu yiri bal meeshaad seexan jirtay ii gogol markaasuu halkuu seexan jiray u goglay markaasuu halkii nabigu yara seexday markaasuu geeda rubaba intii mira uga soo guray markaasuu mar saddexaad casarkii ku noqday markuu soo diiday ninkii markii saddexaad ee uu yiri yaa abaa qaasim waxa weeye marna inaan sugaa dhici maysa ninka sanadka waxaygii wuu isinama waanu isdilaynaa ayaa waxa dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri jaabirow orada beertaada inta dhex qaado ninkani waxa uu kugu leeyahay uga soo gur beertuna tu waxa lagu leeyahay kala barkii iyo thuluthkii iyo khumuskii toona gaaraysa mayna ahayn jaabir mid kamida mucjizaadkii nabiga intuu beertay dhex galay ayuu ka soo guray wixii ka soo gur la yiri dabeedna intuu deyntii sii bixiyay oo uu waliba deyntii si fiican ugu guday ayay beertiina sideedii iyadoo soo hadhay markaasuu nabiga markuu u bishaareeyay ku rasuulkii Allah deyntiina waan guday waana ducadaad ii ducaysay deyntii markaan guday waliba timirtaydi iyadoo sidii abay soo hadhay intii yaraydeed ogeyd yaa wuxuu yiri nabigu ashhadu an la ilaaha illa allah wa anni rasuulullah kullaba soo waxa dhageysataa نبي محمد وتاجن موقف كي بدر وحو صدح بقول يصدح يطبن صدح بقول يصدح يطبن كان اسمه يقانان نبى وحو كسو جيدا قبيله يا هيب يا دولة يا ضل يا ميل قارو كسو جيدا لكن وحا هرفا إذا كن أبي جهل وطه إياه شيبة إياه عطبة إياه هبل وكن المعذيره الدقال تقانو الدولة سو جيرينا وحوية الدقال ذو قلي جرتي نقول بعدين عقد دقالمية حالة وكفي عنيا هي تبتي حالة وإسلا يقانين لكن كوا النبي صحابة إلا صعداي قلبي باي هيانيا نياد يا إيماني دad isyaqaano isku tabaho dagaal la soo wada galay maaha hubna ma wataan 70 waxa weeye laba faras bay wataan halkay kuwa kale 70 ka wataan 70 neef oo geelay wataan halkay kuwa kale 700 ka mulkiyaan kun bay yihiin halkay kuwa gaaladii halkay kuwa muslimkii 310 ka yihiin iyo 310 iyo tira yar oo dhowr iyo 10 iyadoo halka la taagan yahay ayuu safkii simayay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu safkii simayay ayaa nin Sawaad ibn Qusayya la yiraahdo saxaabiya yaa dadka saaga soo yar dhex baxay ul yar xarbaahu nabigu watayo saaciidanka ugu kala safayay ayuu saa ugu dhuftay oo wuxuu ku yiri sawi saf ya Sawaad bu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam Sawaad oo safka la siman u sheebo ku dhuftay Sawaad intuu caloosha isqabtay baa wuxuu yiri awjactani ya rasuulallah
rasuulka ilaahay oo aad baad ii xanuunisay aad baan u xanuunsaday markaasaa wuxuu yidhi maxaynu samaynaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan kaa argoosto waad garan kartaa maanta luqada caalamka ee siyaasadda waxa lagu yidhaahdo amar diidda goob dagaal askarigu hadduu goob dagaal amar diido dadka yaqaanaa waxay noo sheegaan inuu dil mudan yahay laysna weydiinayn baa la sheegaa laakiin nebi maxamed beder buu hor taagan yahay siduu u ducaynayay uu cirka gacmaha ugu taagayay buu gu'i ka dhacay xitaa markaasaa abubakar wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay oo intani way kugu filantay intaasi kugu filan kafaaka munaashadatan yaa rasuul allah wuxuuna leeyahay allahuma in tuhlik hadihi alcisaaba falan tucbad bacda alyawm maanta dabadeed lagu caabudi maayo kuwan haddaad halaagta abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali iyo ay ka midka yihiin waxa weeye markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sawaadow maxaad ku raalli noqon oo wuxuu yidhi dee inaan ku garaaco saad ii garaacday markaasaa wuxuu yidhi haye u shaqaado iga jaro dhaqso markaasaa wuxuu yidhi cambuurbireedka iyo qalabka dagaalkeed xidhantaa iska bixi anugu waan feedha qaawanahay markaasuu nabigu iska dhigay calayhi salaatu wasalaam wuxuu xidhnaayoo dhan oo uu feedhihiisii qaawiyey markaasaa wuxuu iga argooso markaasaa wuxuu ku yidhi markuu ka argoosimaagay ee uu saxaabigii soo dhaqaaqay sidii layslahaa ayuu nebigaoo feedha qaawan ku dhegay oo dhunkaday intuu ushii dhinac isaga tuuray wuxuu yidhi maa xamalaka haada yaa sawaad sawaadow maxaa kugu xambaaray sidaad adugu yeeshay wuxuu yidhi waxaan hor taagannahay dadka aad aragtay tirada ay leeyihiin iyo cadownimada ka muuqata maanta dhimashaan u dhownahay marka waxaan islahaa buu yidhi aakhiru cahdi bidunya cahdiga iigu dambeeya adduunka inay xujo ii noqoto jidhkaygu wuxuu taabtay jidh nebi macsuuma jidhkii nebi muxamed khaatami alambiyaai warusul sawaad isagu dantaasuu ka lahaa laakiin nebi muxamed inagu takalaynu uga faa'iidaysan waxa weeye cadaaladii xataa meesha ugu khatarsan adduunka hadduu ka taagan yahay islaamku waa manhaj caadila wey islaamku waa manhaj caadila wey marka amhiladaasi dhammaantood waxay ku tusinayaan cadlulislaam musalsalkaasina ama qisaska cibrada leh ee ku saabsan cadaaladda islaamkuna way noo sii socon doonaan insha allahu tacaala innaga oo ka qaadanayna sunnada saxiixa iyo qur'aanka kariimka waxaan leenahay maqaadicdaas adiguna dhegayso kayrkaana u dir amarna ma ahee ixsaan weeye oo addaallu cala alkhayri ka faacilihi baynu leenahay insha allahu tacaala فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب